abaabul weyn oo ku aadan sidii xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab looga saar lahaa dhowr deegaan oo kaabaya ku haya gudaha degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa ka socda gudaha deegaankaasi waxaana abaabulkan iska kaashanaya ciidamada deegaanka oo garab ka helaya daraawiishta Galmudug iyo qaybta kulaatanaad militariga Soomaaliya kuwaas oo fariisin ku leh gudaha degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud daraawiishta Galmudug iyo ciidamada deegaanka oo garab ka helaya qaybta kulaatanaad militariga Soomaaliya ee abaabul ka wada gudaha degmada Baxdo ayaa doonaya inay tagaan deegaanka dhasoo sharaf leh iyo tuulooyin hoostiga deegaankaasi halkaas oo maamul la soo dhaafay ay guryo dad shacab ay lahayn ay ku gubeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii halkaasi looga dilay horjoogii ugu magacoonaa deegaan dhanka koonfureed uga beegan degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud waxaana abaabulkan ka socda degmada Baxdo si weyn uga qayb qaadanaya xubnaha ka tirsan maamulka degmada Baxdo ee Galmudug gudoomiye ku-xigeenka magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud Axmed Salaash Shaqdheere ayaa warbaahinta u sheegay in saacadaha soo aadan ay dulaan ay ku qaadi doonaan dhowr fariisin oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano dhan koonfureed uga beegan magaalada Baxdo isla markaasna dhibaatada dadka xoolo dhaqatada ay ku hayaan ay ka dulqaadi doonaan sidoo hadalka u dhigay Axmed Salaash Shaqdheere gudoomiye ku-xigeenka Baxdo waxaa sidoo kale uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay gubeen guud ahaan deegaanka dhasoo sharafle iyo tuulooyinka hoos yimaada isla markaasna qayb ka mid ah ay rateen aga ku yaala gudaha deegaanadaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in duulaankan ay qorsheeyeen uu sii socon doono ilaa inta dagaalamayaasha al-shabaab ay ka xoreynayaan deegaano badan oo hoos yimaada degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud oo ku tala jirnaa insha Allah taala gacantaana kula jirnaa nimanka nafl caariga ah oo isuwan oo cadowga hadii ilaahay ku ruuyahay muslimiinta ah oo cadowga noolaha ah inaan xoreyno oo meel allaati meesha joogaanba ugu tagno oo ku waxyeelayno oo ku dhibaatayno diyaaran u nahay cidaan uga gambaynayna ma jirto cidaan uga hebaysanayna ma jirto waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in war kale kuu soo yeero haddii ilaahay yidhaahdo insha Allah haddii ilaahay ku run yahay war ciidan in laga horraaco ma fiicna laakiin in wax fiican oo haddii ilaahay ku lagu naaloodo oo haddii ilaahay ku run yahay adduunka dhan ka farxiya ama muslimiinta adduunka joogto dhan ka farxiya inaan haddii ilaahay ku run yahay aan ka farxina rabnaa insha Allah waayo war ciidan waaye lagama horraaco annaga waddanka dhan ama gobolka dhan baa naga sugaya xoreyn meel taarget gooni noogu uhma jirta annaga diirsigaas iyo wasaqdaas waddanka ay dhagaan aan ka xoreynaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo insha Allah tacaala wax nool oo ay beenayaan ma jiraan guryo ay tuulada sharafle ka guriyeen daraad inay dadkii inta ka dhasheen jeegada fuqsooyeen oo rarteen xalay qofku mar hadduu barakaco wixii ku noolaay waxa dadku bini aadamku ay ku noolaadaan biyaha ugu muhiimsan biyihiina waa laga barakacshay oo laga duldega maqrad laba jeer nagu soo tuureen qori la yidhaahdo geenaan soo tuureen maadaama ay dad dhibaato dad muslim oo sabaateynayaan waxaan u baaqayaa inay u qalab qaataan oo nimankaas ka xoreeya haddii la yidhaahdo annaga shacabka Baxdo waa abaabulan yahay nidaam dawliyan waa abaabulan yahay nidaam shacabna waa abaabulan yahay inay iska dulqaado xilligaas haddii la ku ruuyahay deegaanada haysta hadalay inta ka dhaxaysa insha Allah tacaala meesha ay joogaan inaan xoreynaan rabnaa haddii la yidhaahdo insha Allah tacaala duulaanka ay qorsheynayaan daraawiishta iyo dadka shacabka oo garab ka helaya ciidamo ka tirsan qaybta kulaatanaad militariga Soomaaliya kana socda gudaha degmada Baxdo ayaa ku soo beegmaya xilli dhowr maalmood ee la soo dhaafay dagaalamayaasha al-shabaab ee falal isku jira gubid iyo afduub ay ka geysteen deegaanka dhasoo sharafle iyo tuulooyin hoos yimaada sidoo kalena dhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano kaabaya ku haya degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud